barnaamijka u lahaa glaaska form 3 waxaa saaka halkan inagu soo gabagaboobaya tartankii kubadda cagta ee muxuu ahaayay loo dhigay saddexda galaas ee sare iyo galaaska ayka walowba ay noo harsan yihiin afarta galaas ayb laga bilaabo ilaa 7b ilaa muxuu ahaayay tartankaasi maanta halkan ku soo gabagabeynayna alxamdulillah tartankaasi waxa inagu soo dhamaaday si qurux badan si walaaltinimo ku dhisan tahay tartankaasina mid un baan u qabanno mid aan u qabanay waxa weeyaan si ay isku dhex gasho dhalinyartii ku bahawday ama ku midowday magaca dugsiga Al-Furqaan Schools alxamdulillah tartanku si wacan bay nagu soo dhamaaday barnaamijka ayaa sii gudagali doonaa waxaan ku furfuri doonaa aayadaha quraanka kariimka oo inagu furfuri doono Axmed Ali Yaasiin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين لاسك آيات مباهسي هاي نقول راحي آيات كقرآن كريم عاطنا وحبسوا لوينا يا معلكينا معلم السيد معلمكي أولادي أما بريجي أن يرى أنت المام السنة لوادي كل يوم توانكي وافلا يا مستقالكي وحيدي جري أستاذ سيد فليتفضل مشكورا وأشورا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii faraxtida iyo raarayntaan dareemi soo koobi karayo intaasa igu filan waxaan xasuustaa muddo laga joogo imika waxa weeyaan 12 sano ka hor halkaasaan barnaamijyo ka soo jeedin jirnay anagoo ardayda sinoo kala markaa dabeeto de waa naga dambeysay oo casri baad soo kordhiseen barnaamijka lagu hadlayo baalkaa waxa weeyaan istaagay anigu mana lahaa jirin markaa runtii horumar baad samayseen haddaad tihiin ardayda reer Furqaan secondary-ga kuwa dugsiga dhexe kuwa ayrka kuwa soo baxaya runtii waxa weeyaan waxa badalin lahaa anigu war casri baa lagu jiraa iyo dadaal baa lagu jiraa dadaal laga badin hanu dadaalno waxaan u baahannahay arday aqoon leh oo tayo leh oo dadaalaysa oo waxa weeyaan akhlaaqi lagu yaqaanay Furqaan in laga helo waxaan xasuustaa halkaa loo soo taagan oo ardaydu waxa weeyaan daraga fadhiya qaar baan isku loodahay macallimiinta fadhiya ayaa waxa dhici jirtay in maxay tahay aan barnaamij soo diyaarin markaas raggaan ka soo jeedinaya ardayda wax moodaa in khibro akhriyaan runtii waxaan codsan lahaa ardayda dhammaan aad iyo aad badan maasatiin Allah in barakeeyo ardaydu waxa weeyaan mirihii iyo guushii la doonayay ayaa ka fadhiya geedkii baa marka la beero waxa laga goostaa midho marka mirihii baa tihiin runtii waxaan u lahaa anigu dee hadal badan iyo banaano rag badan baa ka dambeeya dowlad kulli macallimiina anigu kelmaddeeda waxaan ku soo ururaysaa arday wareeyo dadaalno aqoonteena tayayno akhlaaqna ku darno taasoo guri gaarina oo la helo arday reer Furqaana oo horumar iyo wax weyn guul soo kordhiyay oo tantanka Soomaaliland soo garamaysa tantanka arday ugu sareysa inaynu kaalinta lahaan jirnay soo ciisaan waxaan xasuusanaa hay'adda geeska xilliga lagu wax dhiga jirnay Furqaan baa ku sareyn jirtay Furqaan number 1 baa haan jirtay marka aan u baahannahay inaynu soo celino guusheena arday aynaan dhigan waxaad ogtihiin dugsiga Al-Furqaan uu yahay waxa weeyaan al-madaris hooyada dugsiga ما من أرض إلا هو إسلام قارك تروح reer Furqaan baa jiray marka waxaan u baahannahay dugsigeena wanaagsan ee soo jireenka inaan soo celino guushiisii iyo limintiisii intaasaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad buu mahadsanyahay macallinkeena ustaad sayid runaantii waxaynu uga hadlay kelmad qiimo badan oo ah inaynu ka qaadno
magaca dugsigeenna maanta magaca dugsiga ku fadhiyo dugsiga Al-Furqaan idinka ayaa haya haddii aad dibadda aad akhlaaqdaada iyo asluubtaada ay ku wanaagsanaato markaaba waxa la isweydiinayaa halku ardayga yar ka soo baxay waxa la oranayaa dugsiga Al-Furqaan buu ka soo baxay ma sha Allah marka haddii ay halkaasna dibadda akhlaaqdaada ay ku xumaato oo waxyaabo badan samayso oo aad gidaarada fadhiisato waxa la oranayaa halku ka soo baxay dugsiga Al-Furqaan marka dugsigii adiga u haya magaciisa inaad kor u qaado adigana u haya inaad magaciisa hoos dhigto marka waxaan kula talin lahaa nafiin iyo nafaahigaba inaynu magaca dugsigeena mar kasta kor u qaadno barnaamijkaas sii gudagali doonaa imika waxaan ku soo dhaweyn doonaa macallinkeena macallin Farxaan Nuur Cabdullaahi oo ahaa macallinkii mar kasta naga taagnaa iyo ciyaar kasta oo garoonka ka dhacaysay garab taagnaa isla markaasina kaalin buuxa naga qaatay falyatafadal mashkuura maajura macalin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان صباح ونحسن أرضي وحويا إن بدنا أيان هالكن صفر السنة أنه يسوق بيننا نتكلم عن الشهادات كصبحي أنت بدنا الله ينقدر دردار يا ما الله ينقدر الله سيدا كلنا أسكالها الإنسان دينا عقون تيه تعليم ما أنت برنامج كي برنامج كل رن واحد عمر كاسين الشهادات كاسبنا عيارها أيام ماشوا فدينا كاسية وحويا إن هالكن بربلو كقسميني مالكن مالنتي كوريسي جلاس قالك يا الله ما كوبكن وعمر كاسية وحويا مدينة وذبح يا الله ولقوا ترتمي وحويا مالنتو جلاس كن هالكن السعودية يوريسي كنتي جلاسنا ما لهاي نما عندكم أي مجاعونين لكن وحويا مركل لا ترتمي كل وحويا مركل لا برتمو ولا كلا بدينيا جلاس كي بديه أيه ما تمشوا فدينا نكون مع مسنا وحويا نكون عم بلينا قدوسينا إن شاء الله تعالى عدالة كدقو وحويا وريدين تينو سعودي وحصاد على 7 عيارات وحويا نقبلني 7 عيارات أرضي يا معلم يا مام البوحة كويه اللي قلت له لو جرب تاعنا سفي عنا وحويا لو قاعد قاتل لو سوي عيارة هذا قيمة بدن وهذا حساب بدن بقى عيارتي أيضا قيمة حساب بدن عيارتي قدام بيسي جلاس كلا قاضي مركز وحويا رمت عيار تاسي وحويا عيار دافتين تاني شوكتي وبين وإلا دعان معلمينتي يا أرضيدي يا تاجرياش يا تياش عياري توا waxaad ciyaar soo jiidatay runaantii aad iyo aad bay qiimo badnayd waxaad ciyaariga la qiimo badan ciyaarihii waxa weeyaan gobolada tartankii gobolada Soomaaliland laga qabtay sidoo kale waxa weeyaan iyo ciyaaraha kale ee daawanay waxa weeyaan dalka gudihiisa ka dhacay kuwa qaaradaha kale ka dhacay intaba runtii xusuus gaar ah bay ciyaartaasi lahayd sidii ay qiimaha badnayd waxaad ka dareemaysay kubad kaliya kor uma kacay waxay taalay kubadda dhulka mar walba waxaana ka muuqatay labada kooxood ee soo diyaar garoobay qaabka ay ciyaarayeen iyo qaabka ay isugu dhiibayeen iyo qaabka goolku dhashay oo dhamaan hal mar la wada kacay markuu goolku dhashay yaani qaabka looga soo shaqeeyay ama baaska iyo quruxda la soo ciyaaray labada kooxood baa dhaliyaan runaantii ciyaartaasi waxa weeyaan waxa lagu kala guddoonsaday koobka halka yaala ayadoo waxa weeyaan dadkooda ciidan calaf lahayd si fiican waa la isugu hambaliyay runaantii waxa weeyaan markaas markaan ciyaartaas soo dhaafno wareegii aan qabanay waxa waa mid aad u qiimo badan oo aad ismaqal iyo ixtiraamkiisu uu sareeyay waxaan ku dhiiranaynaa kuwa iyo kuwa kale lamida in la qaban doono sidii aynu kii hore waxaan aynu ka baranay ama qaabkaan u jeclaysanay aan la barteen wareegan iyo kuwa kale waa idin qaban doonaa insha Allah markaas ma noqon doono wareegii ugu dambeeyay waxa weeyaan insha Allah waxa weeyaan wareegii ugu horeeyay ayuu noqonayaa qaabka yaani waxa weeyaan aad isu maqlayseen qaabka isu ambaliyeenayseen qaabka isu ixtiraamayseen ardaynimadu ay ka muuqatay runtii waxa weeyaan mid la soo jiitay oo lagu dhiirigelinayo wareegyo kale inaan qabanno inkastoo ciyaartii ugu dambeysay xagasho yar oo farabadan ay jirtay taana xamaasadda galaaska iyo koobka ayaa keenayay waxa weeyaan markaas ciyaartoydii waxa weeyaan ciyaarayay ayagoo dagaal soo wada bandhiga galaas walba bal waxaan xusi doonaa ciyaartoydii ugu cadcada ee yaani waxa weeyaan wareegu intii uu socday haday dhaxda tahay daafaca tahay iyo weerarka iyo sidoo kale xagga goolahaba marka waxa weeyaan ugu horeysayna bal goolwadii ugu fiicnaa wareegu intii uu socday intii wareegu socday ciyaartii goolwadii soo jiitay tarabuunka ee loo xidhay waxa noqday وليد استاغ دمان مسعد بن وليد استاذكينا استاذ فرحان نور عبد الله امي كان waxa ku soo dhaweynaya ustaadkeena ustaad Xasan Xaamid oo ahaa macallinkii noo keenay fikradda ah inaanu dhigno koob
isla markaasina ardayda dhex dhigno falyatafadal mashkuuran maajuura ustaad xasan xaamid. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. كل هذا الذي يلقى وقلت لك لي إن لا يراهضه واحد بيجي معلميتي جو الرئيسي أنا وحن أرجع علينا نحصون كل فكرته قفهم بكذا مالي أنا وكنت لا جلست كفونتريجا ayaa kelmadii dhiirigelinteedan soo qaaday waxa ka mid ahayd inay yihiin hormoodka iskuulka taasoo ahayd inay wax weeyaan waxyaalahan iskuulka hore loo arag amba hore loo qaban amba la qabto iska naadir ahaa inay soo bandhigaan nashaadaad fara badan weyn samayn jirnay oo iskuulka iskuullada dalka ku yaala iskuulka keliya ee ugu nashaadka badan baa nashaadka daabuurka marka la yiraahdo calal idlaaq wala isku waafaqay taasi waxay inoo faa'iideysay inaynu noqono ardayda ugu cadcad marka jaamacadaha la joogo ee la jeedinayo presentation amba niqaashaadka la jeedinayo inay noqdaan group kastaba ardayga reer Furqaan ee ka socda inuu noqdo ka kooxda u jeediyo waxa weeyaan niqaashka la sameeyo taa wala isku waafaqo wala arkay arday fara badan oo iga sheekaysayna waan arkay waxa weeyaan annaguna waan uga soo joognay annagaaba sameyn jirnay waxa weeyaan nashaadka aan ku dhiirinay ahayd inaan kubad qabto kubaddana wada garanaysaa xanaftay leedahay iyo waxa weeyaan dhibaatada ay wadato waad arkaysaa nin walba wuxuu doonayo inuu guulaysto laakiin alxamdulillah maalintii qurcada la tuurayay ee isku aadaadka la tuurayay halka dardaaranadii la jeediyay waxa ka mid ahaa inaynu garoonka la tagno waxa weeyaan akhlaaqiyaadka iskuulka Furqaan alxamdulillah waxaan arkay waxyaalo aanan islahayn way ardaydaasi waxa weeyaan way laga arki karaa oo aan islaam kubadda ayaa ka awood badan doonta oo ahayd inaynu ahayn waxa weeyaan waad moodayba dadka waxa weeyaan inay siday u dhageysanayaan aad moodayso inay muxaadaro diini ku socotay siday u dhageysanayaan waxa weeyaan kubadda iyo siday u dhageysanayaan waxa weeyaan nashaadaadka meesha ka socday oo qolana waxa weeyaan inay ku orinayno si fiican way qolada kolba gool dhalisaanba qolada laga awood badnaa si fiican waxa weeyaan saxabka loogu tuumay dhiirigelin fara badan labada dhinac bay ka socotay kulay kubaddu waa barmadow iyo naqaanayo barcad aad iyo aad ba waxa weeyaan ay ardaydu u soo bandhigeen nashaadaad qurux badan xirfad kubadeed oonan islahayn ardayda reer Furqaan xirfadda noocan oo kale ku jirta ayay soo bandhigeen taasina waa inay sheegnaan niri waxaynu ka soo saari doonaa meesha team inabtela oo Furqaan ahaan oo dhan matala alxamdulillah kulay shaxdaasi waanu ka baarandegi doonaa waxyaalo fara badan oo khaladaada oo degdeg u keenay baa jiray annagoo kubadda qaanuun iyo shuruuc wax weeyaan adag ka dejin taana insha Allah hadii la yiraahdo shay kasta waxa laga bartaa duruus iyo cashara laga bartaa kulay tartanada dambe inoo soo socda ayaynu dejin doonaa ardaydu guud ahaan si fiican bay wax weeyaan ay kubadda u ciyaareen runaantiina waxa guuleystay galaaska iskuulka hormoodka ee Fontiriga hambal yabaan leenahay nimanka eerarka waxay soo bandhigeen galaaska ee kubadda aan hore loo arag bay soo bandhigeen oran islaahayn nimanka inta leeg kubaddaas ku jirta habeenkii koowaad meesha tagay anigoo oday reer Furqaan iska dhigaya ay igu yiraahdeen adoo qoladanaad ku faylasay bay igu yiraahdeen marka daan ka baxay ma jirina waayay baan inay dhiirigelin badan baan siinay kubad fara badan baan soo bandhignay waana la isku waafaqeen oo intii ugu quruxda badnaa inta hadee waan ku yar tuuraya raalaha waayay iyagana si khaas ah waxaan u leeyahay hambaliyo wali waxaan rajaynayaa insha Allah imtixaanka eerkeen sugayna sanadka kaana inaad kaalinta koobaad ka gashaan wabillahi tawfiiq ustaadkeena ustaad xasan aad buu mahadsan yahay ninkana uu yaray xagga ardayda Cabdirasaaq Maxamed Carte oo ku hadli doona afka galaaska foonto falyatafadal mashkuuran maajuura ahla sheekhi watay أبو علي كوبي جلاس كا أما كوتش كوبي جلاس كفوتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هرت حاجة واحدة صبر عابن مع كوتش كي جلاس كفوتو لا. تاني كستو استاد كنا مقيا أنا كوتش ما يحس عرني. لكن بيرجليه كوحد بنو السعودي. لكن حاجة وحنا كلا كورنا عيال يا قروح بدن. لكن هنبلي على نهاي. عيال تأدي أصل قروح بدن. هنبلي على نهاي. أنا كنت برا برا برميس مع ذي هرنا وشاي. تبي بدي أنا ما بحرين بيرهرين.
بعدين ما هو ولا كمان راعنيا أما كان وحنا آبي أبن أسيت عبري السلام عليكم أسيس صعبة حق معلمتها وكسر نقدر وحكسر دوين يا أستاذ كينا أستاذ أويو فليتفضل مشكورا مأجورا شيخنا. الحمد لله ثناء الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد كل دبورتو ما أنت وحلقها ضياء وحويان أرنقار وأجور وحن كان يجرون وحوي وحبر أشاب إيو aqoonta iyo xaflada la isku yimi jiray gaar bay ahaayeen maanta xaflada marataan waxa weeyaan xafladu si gaar ah ayay waxa weeyaan yow socotaa waxa laga hadlayaana wax ka duwan waxyaalihii hore laga hadli jiray wey horta marka ugu horeysa dee ardayda tartantay hadday form 3 yihiin iyo hadday kuwa ugu hooseeya maartay yihiin ardayda tartantay dhammaantoodba waxaan leenahay hambaliyo waan soo dhaweynayna waliba qolada iyaguna guulaystay waxa weeyaan koobka halka yaala qaaday ardaydaana waxaan leenahay maartay hambaliyo kolley dee tartanku iyo in la tartama waa shay bannaan diinteenna in la tartamo oo waxa weeyaan lagu tartamaa shay bannaan weeye oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tartansiin jiray fardihii waxaana inoo sheegay nebigu waxyaalaha lagu tartami kara inay ka mid yihiin fardaha iyo geela iyo in lagu tartami karo xagga kale hadday noqoto kubad iyo hadday noqoto orad iyo haddii noqotona waa lagu tartami karaa laakiin waxa la isweydiiyaa un lacag ma lagu qaadan karaa laakiin tartanku shay bannaan wey oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tartansiin jiray dee fardahaas iyo geela u tartansiin jiray baab gaara waxaa jira dee fiqigana la yidhaahdo baabulmusaabaqaat isaguna maaragtay migaara marka dee tartanku shay bannaan weeye waxaa dhici jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a ayaa wuxuu ku yidhi caaisha kaalay caaishaay ila baratan markaasaa baratankii markay baratameen markii hore waxaa ka badisay iyada laakiin markii dambe maaragtay ani nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka badiyey markaa tartanka in la tartamo oo maaragtay la ordo oo kubad lagu ciyaaro way bannaanta laakiin mid baan ku baraarujinayna in la tartamo adig lagu daawado dee wey laakiin adigu inaad dad daawato kubad maaragtaan ciyaarayo waqtigaad iskaga hadlaysaay wax bannaan maaha oo innaga waxa weeye inay naga soo baxaan rag de waxa weeyaan xidigaa oo waxa weeyaan dadkii maaragta ay daawadaan oo iyagu waxa weeyaan jirkooda dhisaya shay bannaan weeye oo waxay keenaysaa caafimaad iyo maaragta isku xidhnaansho iyo ay bulshadii oo waxa weeyaan caafimaadkoodii iyo jirkooda dhismo ayay keenaysaa oo isagu arrin jirta inagu soo haleeli waayey waanu jeclay inuu inoo imaado balse hawl iyo waxbaa ku soo baxay dhammaan waxaa salaamaya maamulka inamada macallimiinta ardayda dhammaan aad baan u salaamaya asalaamullahi calaykum intaa kabacdi waxaan hambalyaynayaa tartankaa fiican ee idiin socday ardayda dhammaantiin iyo kooxdii soo baxay iyo kooxdii ku guulaysatay inta waan hambalyaynayaa hambalyadoon baan aada ugu soo dirayaa waxaana tahay barnaamijka siriwada waanu joogna insha allahu بيت وحال هاي والبيت العيد حقه الله وله آديات وقضية imikana waxaan kusoo dhaweynayaa ustaadkeena qaybta naga soo horjeeda ustaad محمد حسين عبد الله فليتفضل مشكورا ماجورا استاذ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hambalyo ayaynu leenahay ardayda guud ahaan tartanka wada qayb gashay gaar ahaan kuwa soo baxayna waanu sii hambalyeynayna in yaraan isdhegaysana wax yar jasaakum allahu khayr sheekhu way nooga warramay tartanka iyo howlihiisa iyo
sharci ahaan bii loo taatusha maxamed ilaahay khayr alla siiyo wax yar baan idinku daraanu raggan aad arkaysaan ee macallimiinta maanta idin ama maamulka ah qaar badan oo ka midi waa reer furqaan in yaras dhegaysana wax yar raalli ahaada waxaan xasuustaa ani laftooda furqaan waan soo maray reer furqaan waan ahay galaasida lixaadka markaan ahay baan xasuustaa gaar ahaan waa furqaan markaa furqaan waa qadiim ilaa goormay jirtay ilaa xilli hore ayay jirtay marka akhlaaqda ay nooga warramay walaalkan xasan xaamida ay leeyihiin reer furqaaneed meel kastoo ay joogaan noocaasi ayay ahayn hadday tartan ku jiraan iyo hadday waxbarasho ku jiraan iyo hadday magaranaysa cid kale la wadaa wax marka waxaynu u baahan nahay hawsha lagu ogaa reer furqaan xagga akhlaaqda ahay inaynu sii xoojinno in yara aamusna wax yar sina dhegaysana wax yar aynu sii xoojinno oo sii labilaabno oo hadday tahay tartan hadday tahay waxbarasho lagu tartamo dhan walba way leedahay furqaan inaynu sii xoojinno waxaynu leenahay guud ahaan iyo gaar ahaanba tartanka iyo wixii ka soo baxayba iyo ciddii gashay iyo kuwa guulaystayba hambalya indhana jazaakum allahu khayr wassalaamu calaykum waraxmatullah aad buu mahadsan yahay ustaadkeenna maamulaheenna iminkana waxaan ku soo dhowaynayaa macallinkeenna qaaliga ah ustaad mukhtaar ibraahim muuse macalin qamac بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maamulka dugsiga macallimiinta ardayda sharafta leh dhammaantood waxaan idigu salaamayaa mar labaad salaanta islaamka ee assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu salaan kadib waxaan u malaynayaa munaasabaddan waxaa loo qabtay uun ardaydii kubadda guusha ka soo gaadhay soo saama ardayda guulaysatay ee kubadda guul wanaagsan ka gaadhayna aad baan ugu hambalyaynayaa haddaan maanta mashxaradi karayo waan isku daylaa inaan mashxarado laakiin hambalyo kollay hadalka wixii mucda iyo ujeedkiisu ahaa walaalihii iga horreeya baa yidhi hadalna looma hadlo anaa hadhaye maxaa hadhaa loo hadlaa waxaan u malaynayaa hal guubaabun baan idin siinayaa kubaddu waxay ka mid tahay waxyaabaha caqliyadda jidhka iyo markaasi intaba ka qayb qaata ee dhisa waxaanay kubaddu wanaagsanaataa markay akhlaaqaduna ay raacdo marka kubaddu waxay ka mid tahay waxyaabaha dhallinyarta da'diina ku jirta lagu booriyo marka kubad wanaagsan baan insha allah idiga rajaynaynaa qolada laga badiyo waxaan leenahay laydagama badina waad badiseen waan ka xumahay maalina kamaan soo qaybgelinta ciyaartu socotay wax badan baan odhan lahaa haddii aan maalin ka soo qaybgeli lahaa oon arki lahaa se ciyaaruhu socdaan nasiib darro laakiin xoog badan kama hayo waxaan leeyahay ardayda laga badiyey laydagama badin nin baa laga hayay war inankaagii waa laladgaa layidhi markaasuu yidhi ha laladgee ma kacay waxaan idiga rajaynayaa inta la ladgeynaya inaanay dhulka jiifinay ka kacdo inta la degtayna waa nasiiba baashu dee maalin baa dhulka taalla waxa weeya marka ardayda aad baan boorinayaa ardayda kale laga badiyeyna ciyaartu waa barmadow iyo barcad kolley cidun baa badin lahaa haddii la tartamo inta laga tartamay laydigama badina waad badiseen intaad badisayna waxaan leeyahay baashu waa marune haysdhiganina cumar caaqilka falyatafadal mashkuuran macalin waxaan leeyahay ardaydii guulaysatay hambalyo ku jeer baan leeyahay hambalyo ardaydii kale ee galaasadii kale laga badiyeyne waxaan leeyahay isdhiganina dadaalka wada waad gaari doontaa ustaadkeenna aad buu mahadsan siciid cumar caaqilka iminkana waxaan ku soo dhaweynayaa macallinkeenna macalin cabdicasiis oo raantii markii sigiisaan ka soo wareegay halkaas soo galay oo macallimiinta ka mid igu yidhi ama ka soo baxdo qaybta soo jeedaan ku idhi macallin cabdicasiis ma taqaanaa buu yidhi haa waa macallinkii waan ku yidhi wuxuu yidhi axsan macallin fi lmudaris fi lcaalam buu yidhi marka falyatafadal mashkuura waa jira ustaad ardayda iyo maamulka iyo gruubkii inoo soo abaabulay tartankaa quruxda badan ee saaka aynu iskugu nimid aynu waqtiga badan ku qaadanay aynu dhegaysanayno iyagana aad baan ugu mahad celinayaa kolley dee waxaan soo diyaariyey ma jiro halkaan soo fadhiisto waa taa la noo yeedho macalinta loo wada yeedhay
markuu qofku wax soo diyaariyo waxaan sii og tahay iyo marka kalena way kala duwan tahay marka hadalku hadduu dee naga yar qalqalocdo naga raallihaada intaas waa in afeefa marka labaad ardayda aad baan ugu mahad celinaya hambalyana waan leeyahay oo loo wada hambaliyeeyey waxaan tilmaami lahaa uun waxa cajaa'iba dhammaan macallimiintii halkan ka hadlay iyo macallimiintii noo qaabilsanaa tartanka ee joogay garoonka iyo wararku sida nagu soo gaarayeenba oo dee warku intaa kolba uu soo gaarayay tartanku sida quruxda badan uu socday waxa la wax buuqoo laga maqlay muu jirin ardayda wajiyadooda amiga laga garanayaa inay isku wada caloolsan yihiin sida quruxda badan ee xafladaasi u socotay maxaa dhahdaa tartankaasi aad baan ugu hambalyeenayaa ardayda tartankuna waa wax aad u qurux badan oo waxbarashada ka qayb qaata oo saaka ardaydii maxaa dhahdaa tartankaa ka soo qayb galay iyo ardaydaa kale daawanaysaaba inta way wada faraxsan yihiin meeshan hadda waxaa nooga soo baxay difaaciye iyo weeraro laynoo tiriyey raggaas way sii soconayaan una hadhow toole kuwa qaranka difaacana way noqon doonaan iyo kuwa qaranka weerarka u noqda marka iyagana halkaa kasii wadaan leeyahay arday fara badan oo kale oo iyaguna kubadaha iyo tartamada noocan oo kale aad ugu fiicanba iyaguna jira iyaguna insha allahu tacaala marka dambe waa laga xusi doonaa halkan way istaagi doonaan marka ardayda waa aad baan u hambalyeynaya kolley waa hambalya uun intaynu saaka halkan iskugu nimid ardayda waxaan leeyahay kolley tartano way noo socon doonaane dee halkaa kaga sii wada ardayda ayrkeeye saaka la wada xusay ee la leeyahay iyaguna waa ardaydii aadka ugu fiicfiicnaa kolley waxyaalaha aadka loo xusaya waxa weeyaan akhlaaqda marmarka qaarkood waxaa jira qof badiyey laakiin mid laga badiyey laga xusid badiyo marka kolley ardaydaasi inta badan carabka lagu wada adkeeyey waxyaalaha ugu badanoo lagu xusaya waa akhlaaq wanaaggii inkastoo ardaydu ay wada akhlaaq wanaagsan tahay oo wax ceeba iyo dhaliila oo saaka lagu wada sheegay aynay jirin oo hambalyo iyo maxaa dhahdaayay qurxin un ay tahay maxaa dhahdaa ardaydaasi sida maxaa lagu sii loogu hambalyeynayo marka waxaan odhan lahaa ardayda hambalyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ustaadkeena cabdicasiis axsan mudaris fi lcaalam aad buu mahadsan yahay iminkan waxaan ku soo dhaweynayaa macallinkeenna mahdi ibraahim faarax falyatafadal mashkuura maajuura ustaad ugu horeyn waxaan u hambalyeynayaa qolooyinka galaaska saddexaad ee ku guulaystay tartankii inta muddadaa ka socday iskuulka marka labaad waxaan doonayaa bal inaan idiin sheego kubadda iyo muhiimaddeeda iyo waxa ay ardayga ka caawin karto markaas ardaygu marka toddobada cisho uu ku soo jiray ama intaasoo dhan uu maalin kasta 6 xiisoo soo qaadanayay maskaxdiisana waxbarasho ka dhex buuxaysa activity iyo nashaadaad bay u noqonaysaa kubaddu markaasi waxa la yidhahdaa kubaddu waxay ka shaqaysiisaa dhammaan jidhka oo dhan maskaxdaada shaqaynaysa waxaa shaqaynaya jidhkaaga muruqyadaada waayo mar kasta waxaad ka fikiraysaa uun maxay kubadda hadday kaa maqan tahayna saa usoo qabsan lahayd haddaad haysatada halkaad marin lahayd inaad haddaad difaac tahay aad u tuuri lahayd tusaale ahaan dhexdaada haddaad dhex tahay weerarkaaga sii quudin lahayd haddaad weerar tahayna saa u daba marin lahayd gobolada kaa soo jeeda markaas unbaad mar kasta ka fikiraysaa sidoo kale taageerayaasha kula socday iyo coachkaaguna sidaas si lamid ah ayay u fikirayaan kubadduna waa bar cadi iyo bar madow de waxa weeyaan ama waa lagaa badina ama waad badini laakiin muhiimaddu waxa weeyaan haddaad badisana halkaa ka sii wad tartanka iyo guulaha haddii lagaa badiyana haliyajabine de waxa weeyaan qaladaadkii algashay iyo hadduu difaaca kaa xumaa iska soo hagaajiya haddii dhexda haddii weerarka waxaana muhiim una kubadda ciyaarayso akhlaaq inaad la timaado iyo inaadan xanaaqo waayo nin xanaaqe laga bedi baa layidhi dad xanaaqo kubaddaada way kaa xumaanaysaa laakiin haddaad dhiiranaato oo aad nefa gif af noqoto aanad joojin dagaalkaaga ugu dambeyn markaasi waad guulaysanaysaa qolooyinka iyaguna soo socday ciyaar doona iyaguna galaasyada kale waxaan u malaynaya inay si aalamiteen iyaguna kale way aad buu mahadsan yahay imikana waxaan ku soo dhaweynayaa maamulaheenna maxamed dayib cismaan falyatafadal mashkuura maajuura macalin kolley hadalkii waa la dhameeyey oo waxaa la idhaahdaa anaa hadhay looma hadlo sidii macallimiintuba u hambaleeyeen anna waxaan hambaleynaya waxa weeye galaaska ku guulaystay koobka waxaa kaloon hambaleynaynaa ardaydii ka qayb qaadatay tartanka kuwii ciyaaray kuwii garoonka yimiday waxaa kaloo aan rabaa inaan xuso
tartankaasi waxyaabuhu soo saaray waxaa ka mid ahaa akhlaaqiyaadka iyo edaabka iyo runtii cabqariyadda ku jirta waxa weeyaan ardayda oo u baahan in la soo saaro marka ama ha noqoto midda kubadda ama ha noqoto midda abaabulka waayo tartamada sportiska waxyaalahay keenaan waxaa ka mid a waxa weeyaan in la helo arday ciyaara arday wax abaabula arday tartanka ka qayb qaata markaa dhammaan waan hambalyaynayna ardaydii kuwii ciyaaray kuwii tartanka inoo abaabulay iyo kuwii ka soo qayb galay waayo wuxuu inoo noqday garoonku meel ay ardaydii mid walba uu shaqo qabanayo ardayga ciyaaraya ardayga hawsha inoo wada dhammaantood aad bay u mahadsan yihiin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u hambalyaynaya waxa weeyaan waa galaaska form 3ga inkasta oo aniga macalin xasan xamuud dee waa taageeradu lagu jirtaay aanu galaaska ayrka taageersanayn oonu jeclaan lahayn inay badiyaan haddana galaaska form 3ga waanu hambalyaynaynaa ha loo sacabiyo galaaska form 3ga ha loo sacabiyo si wanaagsan ha loogu sacabiyo galaaska ayda oo dee dabcan aniga macalinku aanu iyaguna sacab bay leeyihin iyaguna sacab bay leeyihiin waxaan ku soo gabagabeynaya waxa weeye waktigoona haya aawadeed koobkii wuu inoo yaallaa laakiin koobka maanta form 3ga ku magacaabo marka tartan kale la furo ee mar labaadna inoo bilaabo waxaa loo baahan yahay inay cid kale ku magacnaato waxaan ku soo dhaweynayaa ustaadkeenna ustaad khaliif sheekh cabdiqaadir ahna kormeeraha guud ee dugsiyada alfurqaan schools falyatafadal mashkuuran maajuura ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala inoo suurtogeliyey inaanu qabsanno tartankaas alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waxaan u mahadnaq celinayaa u mahadnaqaan la soo koobi karayn iskale xaqiiqatan bacd allahi subxaanahu wa tacaala maamulka iyo macallimiinta inoo soo diyaariyey hawshaa inoona soo agaasimay oo haddii aanay iyagu isku soo dubaridi lahayn ama aanay inoo soo bandhigi lahayn fikraddaas iyo hawshaa aanay runtii inoo qabsoonteen waynu u mahad celinaynaa jazaakum allahu khayra ayaan leenahay waxaan u mahad celinaynaa iyagana aan u hambalyaynaynaa halkanna uga diraynaa ardayda koobka qaaday ama ku guulaysatay tartanka iyagana waxaan leenahay hambalyo jazaakum allahu khayr waxa weeyaan dhammaan guud ahaan ardayda ka soo qaybgalayaasha ee iyaguna waxa weeyaan kuwii laga badiyey iyo kuwii badiyeyba guud ahaan dhammaantiin waad mahadsantihiin ayaan leenahay taasi waa taa xagga mahadnaqa waxa weeyaan kolley haddii la tartamo dee waa la kala badinoo waxa weeyaan tartanku iyo kala badintu waa iska caadi waxa weeyaan la kala badi orodna maaha la yidhi murtida soomaalida waxa la yidhi la kala badi orodna maaha waa la kala badiyey tartan baa lagu kala badiyey qolada laga badiyeyna waxa weeyaan si ay imikaba ugu hambaliyeeyeen waxa weeyaan way ku mahadsan yihiin hambalyada ay u hambaliyeeyeen asxaabtooda ama saaxiibadood qodobka labaad ee isna aan sheegaya waxa weeyaan anoo waktiga iska yaryaan iska soo gaabin doona insha allahu tacaala waxa weeyaan waxay inoo qireen macallimiintii ka soo qayb galay ama hawsha inoo daadihinayey inaydun akhlaaqad wanaagsan iyo nidaam wanaagsan iyo ciyaar wanaagsan inaad soo bandhigteen taana aad baad ugu mahadsantihiin alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin akhlaaqad wanaagsan iyo aqoon wanaagsanba wixii lagu yaqaanay madrasadeenna weeyaan runtii waxa weeyaan isma faaninayno laakiin alxaqu yuqaal bale xaqa waa la sheegaa keena ustaad khaliif aad buu mahadsan yahay goor gaaban hadalkeed gaaban iminkana waxaan ku soo dhaweynayaa maamulaha dugsiga alfurqaan schools gaar ahaan qaybta ilmada maxamuud maxamed yuusuf guuto falyatafadal mashkuuran maajuura ustaad hadal waxaa dhameeyey macallimiintii garoonka joogay ustaad farxaan habaad maqlaysaa iyo ustaad xasan xaamid waxyaabahaas kii soo jirtay waxaa ka mid ahaa
hebel istaag wuxuu ahaa ninkii sidaa hebel warbixintaasoo qoraan waan ka doona farxaan warbixin aad iyo aad u qiimo badan bayd warbixintaasoo qoraan insha allah farxaan uu soo dhigi doonaa waan dhiganaa library aan dhigana dal ka dhigo taas waa taa aad baa idinku mahadnaqayaa afartii kooxood ee sida fiican u ciyaaray waxyaabaha ka xasuusta waxaa ka mid ah anigu maalin baan tegey habeen keliyaan tegey habeenkay famtuga ciyaareen bamaanaya maan wada joogin yar baan ka soo gaaray intii aan arkayey kubaddii aan arkayey aan idiin sheego kubaddii aan arkayey waxay ahayd kubad qurux badan oo isku dhiibka kubadda ugu qurux badan kubadda markaad kubadda qabato jihada waa tiri dimension bay leedahay jihada iyo jihada iyo jihada saddex waa haysataa line gaad ka dhiibaysa marka waana kuu caddaa kaa marka saa tiraahdo haddii la xidho kii kale ku bannaanaanaya marka runtii kubad fiican bay soo jeediyeen in yar baan doonaya idiin sheego intayna doonaya idiin sheego waxa weeyaan kow horta halkaa inaguma dhammaan kubaddii way noo soconaysaa maanta fontru baa guulaystay laakiin waxaanu ka barannay casharo maxaanu ka barannay cashareen ka barannay dib bay u bilaami doontaa maanta xafladdan aan bartaas ku nimid may qorshaysnayn marka hore waxaa qorshaysnayn ma kuu sheegaa nimanka kubadda ciyaaray ee soo badiyey oo darayskii xidhan biladihii oo la diyaariyey tiimkii laga badiyey oo rabay xagga soo istaagay macallimiintii ka soo shaqeeyey biladahoodii waxoogaa kala sii diyaariyey ardaygu ugu gooleynta badnaa sida halkan la soo istaajiyey walxa badan baa dhiman maxaa dhiman walxa dhanba baa dhiman marka xafladdu si kaysa degdeg bay nagu noqotay laakiin inta dambe waynu ka taxadaran haddii la ka dhigo waa la isbartay ardayda kubadda ciyaarta aad ba isku baratay waxaan soo noqonayaa eerka iyo sabanada afartii tiimee kale waxay bilaabaysaa haddii la ka dhigo wayga soo socda waad urursateen wixii khibrada hee waad urursateen waad ka faa'iidaysaa haddii la ka dhigo waad ka faa'iidi doontaan waxaan leeyahay fasalka 8A maxaa idhi abadahade ma maqlay maxaa tihi 8A maanta dhan lagu celcelinayo 8A maskaxdayda naga galeen waayo kubadda markii lagu jiray anu maan joogin maalinta dhaweyd waa yar xanuunsanayey waxaa dhacday telefoonkaan soo garaacay macallimiinta haafkii hore waxaa leedahay waa fomtrigii waa lagu laacay meesha jooga madaxa qabsada inuu eyrkani waa eyr halisaba laakiin waxa kubadda soo bandhigeen kubad waxaan rajayna insha allah ciyaaraha dambana qaabkan waynu ka duwaynaa imika waxaan ku ciyaarinay garoon keliya soomayn dhowr garoon kala duwan baa lagu ciyaari doonaa waan diyaarinayna waar diyaar ma leeyahay ma ku celinaa miyaynu ku celinaa kubadda waaye sabanada iyo eyrka laa diyaar garoobaan iyadana ka soo baxo waan helinaa xaflad qiimo badan oo wasaaradda waxbarashada maanta way nala joogtaaye iyagoo mas-uuliyiintii kale ay nala joogaan wasaaradda ciyaaruhu ay nala joogtana waan qabsan doonaa haddii ala ka dhigo maanta waxaa la dhahdaa hot ceremony weyn waa hot ceremony waa xaflad yaroo geel horaa aadma fahanteen waxaan jeclaan lahaa laba kormeera ay nala joogo wasaaradda waxbarashada waxaan soo dhaweyn lahaa kormeer aadan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay in aanu idinkala soo qayb galno xafladdan kooxda cayaaraha loo qabtay waana aad iyo aad baan waana waxbarashada qaybo fara badan ayay ka kooban tahay waa qayb ka mid ah waxbarashada jimicsiga waa qaybta jimicsiga ee cayaaraha qaybta jimicsiga ee cayaaraha ee kala gedisay aad iyo aad bay markaa waxbarashada waa qayb ka mid ah aad baan ugu wanaagsan tahay in markaa la dhiirigeliyo qaybaha kala gedisan ee cayaaraha ee jimicsiga waa jir ahaan caafimaad ahaan bay u wanaagsan tahay jir ahaan bay kuu dhisaysaa maskax ahaan bay kuu dhisaysaa isdhexgalka bulshada waxaa la yidhahdaa isdhexgalka bulshada
وآد ياد بين مركا ونكستهاي وأنا آد ياد بين وقفر أحسن هاي وأنا ديكو سول ويننا وأنا ديكو عم بلياننا وهذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.